وأكابر bal codkii baa layga xidhaye hadda may maqlaysaan ii soo qora bal war waa cajiib waan kaa leeyahay buldhaqo iyo elekshinka muqdisho iyo xeerka ciisaha arrimaha ku saabsan yaan ka hadlayay in lay maqlaya in kale ii soo qora bal hadda ma lay maqlaya idin وخجرة بس هاي خير إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إستاشا قيمة خالد أفن ونقل الصعود علي ونأكسن قلب ونأكسن وأني السلامي وربل وعجيب وقتي والله حدي أول لمبان تلقل ميي ووحل وحان كوال ليوردن شدان بالغدقي فيسبوكي بدن ما لهي وحاج عمر قربايسي يان ku soo galay ka saaxibnaaba marka ku kala imka ayaan u wareegay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaasha qiimaha qaayale daafaduun nagala soo umada Soomaali shaqta Soomaali dhamaantiin meel ka soo joogtiin habeen daraar subax galab waqtiga joogtiin salaam alaykum allah ni macaaneeyo waan salaamaya halkan waxa ka hadlaya Xaaji Umar Awaale oo nagala soo xiriira markasta Canada Toronto waxa ka hadli doona elekshinka Soomaaliya inuu si nabadgelyo u dhaco anigu qaybta dirta ciisaha ayaan kamid ahay 8 xildhibaan ayay lafta reerkay ku leeyihiin ta oo hadda la bilaabay doono ayay soo soconayso ayaan ka hadli doona waxa kaloon buldhaqo December 2015 dadkii la laayay aan xusayna oo bishii way soo gashay oo dagaal nuus awdal baadegaysa waayay waxa kaloon ka hadli doona arrimaha xeerka ciisaha iyo ciidamada dadka xirxiraya iya diraya moodayada iyo ogaaska ciisaha ayaa dadka afduub ku xirxiraya misooleysa xeer dawladda kilka Soomaalida ama Itoobiya ay ku saabsan ayaa lagu xirxiraya arrin qodobkan aan ka hadli doona saddexda qodob ayaan ka hadli doona soo dhawaada hadda waad maqlaysi Soomaa ii soo qora haya ha u soo celi dhulkaaga hooyo thank you inaad qayb ka noqoto abaabulka dhismaha Stadium Selel and Harira City waayahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhageystayaasha qiimaha qaayale daafaduun nagala socdo aan ku bilowna programkeena programku caawa saddex qodob waa Jabuuti iyo buldhaqo dhimashadii loo geystay iyo Fuad Yusuf Ali xariga lagu haysto waa qodob kooban qodobka kale arinta gobolka City xariga la xirxiraya dadka maayirka Ciise lagu xiraya misla dawlad baa la adeegsanaya qodobka saddexaadna waa taawi qodobka labaad baan u jeeda qodobka saddexaadna electionka Soomaaliya 8 kursi beesha Ciise ku leeyahay ayaan ka hadli doonaa waxaan ku bilaabi doonaa Soomaaliya xaaladeeda iyo election soo socdo soo dhawaada dhamaantiin dhageystayaasha aadna waan ni salaamaya salaam alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad mar saddexaad
salaantiina kama daalo aad baan nii jecelahay ummadda Soomaali meel kasta joogto Soomaaliya waxa weeyaan electionkii madaxweyne Farmaajo ayaa la diyaariyay electionkiina beelbeel ayaa loo galaya beesha ciise waxay leedahay 8 kursi iyo kursiga sanadka bishii hore ayaa la ansixiyay sidoo doona u soo baxay nin badra nin mamaasan oo fuqyoonisa oday ayaa ku fadhiyo horena ugu fadhiyay yaa loogu celiyay okay 8 kursi kala waxa weeyaan waa 5 eeleya laba mamaasana iyo 3 wiil Muuse abad furlaba abad horona abad walaaldoona waxaan macnaynayaa eedaynta loo soo jeediyay ragga halka wasiir ku-xigeenada iyo wasiirada xildhibaanada iyo gabdhaha eeda loo soo jeediyay iyo maanta oo kursigoogii ay ku dagaalamayaan kuwii ku fadhiyay laakiin in laga riixana la rabo oo dadkii Muqdisho joogay ay eed adag u soo jeediyeen kow eeda ugu weyn waa kursiga qaybta eeleyaha iyo horone iyo furlabe ka walaaldoonka eedayn badan lagama keenin wali laakiin isaga ilka asal leeyahay wax qabad muxuu keenay hal lagu daayay muxuu qabtay ma uu gurigiisa arkisan uu shaqaysanay no eeda ugu weyn ayaa haysata waa laba wasiir ku xigeen xamud baa leeyahay ninka horone maxamed cali xagaana waa ninka Yunus Musa oo wali baan abtina wahay adeerna no wahay abi waa ugaad ali quran hooyadina waa odaxgob reegeediya oo laftayda abtina no wahay laakiin haduu shaqadiisa wax qabad laga waayo de qof wax dadka u qabta waa in la dhigo de waxba kaanu kama qabo sababtoo haduu naftiisa wax u cunayo oo walaalkii iyo adeerkii iyo awareertii eedadiyo oo isagu wax qabad muujinay yani waxba ima gabadha kale meesha kursiga ku fadhida oo Yunus Musa ugaadho reegeediya oo samsam leeyahay laba mar baan la hadlay maraan xariirada wax ka dhisaynay ayaan qaadaan guriyay qaadaankii soo bixi baan idho laba kun baan bixin bay tay markii dambe kun bay bixisay abaalka waan u hayaa horta oo kun bay ku dartay deyrka high schoolka xariirad oo aniga ayaan ka qaaday inta waan hayaa laakiin dadkii Muqdisho joogay way ka cabanayaan gabadhii adeertay way ka cabanayaan wiilkan abtiga way ka cabanayaan labada horroone way ka cabanayaan gabadha furlabe waxa looga cabanayaa wax qabad la'aan wax kale oo laga rabay ma jiro gabadha inay shaqo geeyaan wiilasha shaqo geeyaan scholarship u diraan kootadii in aan ku lahayn soo qaataan wasiir buuxa oo dawladda Soomaaliya ku lahayn oo siyaad baralaw naxariistay aan lahaan jiray oo farax faras iyo wasiir kale ku fadhinayeen oo la noo ogol yahay way soo qaadi kari waayeen wasiirkeeni way soo qaadi kari waayeen beesha Samaroon wasiirka ugu qaalisan ee Soomaaliya ku leedahay ha ku diiday adiga Maxamed Cali wasiirka maaliyadda Bayle Abdurrahman Bayle Ducaale waana Samaroon oo riboorama kursi ugu qaalisan ku fadhiya baarlamaankana uu kula fadhiya wasaaradda wuxuu ka shaqaaleysay 100% Samaroon ayuu shaqo gali wax muuqdo u qabtay dadkiisi kolka kursiga kow imika waxa electionkii galaya weekend soo socda 3 kursi baa la soo dhigay kursiga tirsigiisu yahay 260 270 270 waa laba nin oo mamaasana iyo xabad horona yaa ku fadhiya labada kursi 3 kursi weekend baa la soo bandhigay numberkooda waa la ii soo diray tirsiga hob 270 hob 271 hob 236 waayahay saddexda kursi mid ka horone waxa taratamaya xamud oo wasiir ku xigeena iyo abdi boqorada iyo Ismaan boqor wiilkiisi oo ahaa odagii la dilay inankiisi ayaa kursiga ku fadhiya labadaba taratamaya 110 qof oo Ciise ah ayaa ergadii laga dhigay dadkii Muqdisho joogay gabdhiyo wiilal way tashadeen suldaan bay samaysteen oday bay samaysteen hadeetoola ninka wax qabad noo lahayn
we have to remove ayay go-aan gaadheen labada kursi ee badaraxan mid ah iyo mid raacigaala oo meesha mamaasan ka badaraxan cigaal odayga cateeya uu dhintay wiilkiisaa ku fadhiistay wiilkiisina uu dhintay allah u naxariista labada geerida qaatay kursigaa uu bannaan yahay maanta qobba kuma fadhiyo 5 nin oo badaraxana ayaa u tartamay waxa ugu fadal cadcad nin la yiraahdo dirir nin la yiraahdo oo mutacallina ayaa ugu fadal cad shantooda kii ay u gartaan gudida ciisa ee 110 qof ayaana soo bixi kursiga badaraxanta waa kursiga sheekhaashtuna ay soo haybsatay ay doonayso in ay kursiga wardiiq bandhigayna ay yiraahdeen sheekhash iyo wardiiq isbarkana annaku mana arag mana maqale maxaa sheekhaashtana hoosta ka soo galiyay wardiiq waa ciise waa boqorka ciisa annaka ayaa waxaan u garanaysiinay deegaan ahaan baan dhulkan lagu qaybiyay nin wardiiqa oo ingiriiska degan oo Ismaaciil la yiraahdo ayay sawirkiisa gidaar ku soo dhajisteen raggii meesha ka hadlay ee ayaantan videoga soo saar kursiga labaad ee maasan waa raaciga oday Sakariya la yiraahdo oo jaadla oo Ismaaciil Umar geela jaadka u geeya oo kursiga iskaga gubay ayaa ku fadhiya sinis arta isaga ku fadhiya boqolaal wiilala oo raaciga oo mutacallimiina oo dadkooda wax u qaban oo tacliinta galin oo shaqada galin inay ku fadhiistaan ayaa mutaysaya Sakariyana inuu jaadkiisa iska iibsado oo ku noqdo ayaan u baahanahay laakiin yaa arrinka waanka yaa iskale waanka ergada joogta magaalada Muqdisho ee isu doorteen ee halka suldaanka iyo odayada yaa ergada yaa go'aanka iskale saddexda kursina wiiga damba ayaa go'aankeyga la gaaraya waay maxaa soo haray kursigii walaaldoonka kayf raba iyo saddexdii wiil Muuse saddexda wiil Muuse waa mid Sacad Muuse yaruun odagaas wax eedayna iyo wax u qabtay iyo wax wanaaga iyo wax dhima midna kama maqal waanka iyaga gaaraya ergada ayaa qofka la tartamay nin baa la tartamay halkaan nin la tartamaya ina uu ku guuleysto iyo inuu isagu soo noqdana waanka waxa iska yeelan doona dadweynaha foodka ugu riday saddexda kursi ee aad ku fadhiya kulay waa labada Yoonis Muuse iyo xabada Fuurlaba maxaa labada dhacay labada ugu fadal badan 8 kursi ee meesha waa laba gabdhood iyo nin gabadha Fuurlaba holle khadra leeyda gabadha kale ee Yoonis Muuse reegeedina Samson baa leeyda gabadha Fuurlaba wax dhibay geysatay ma maqal laakiin wanaag hal qodob waa loo hayaa oo waxay geysay gabadh bay caafimaad u dirtay dhakhtar Turkiga gabadha waliba iyada afkeega iga sheegtay gabadh Yoonis Muuse oo bugtay iyo noolkii wax ka qaban qaabiyoon Turkiga geeyay igu tiri sharaf laakiin xabad qura de qodob baad ku heli point qura leedahay hal laga rabana 100 qodob ayaa laga rabaa 100 qodob ina wax qabad la timaad dhakhtarada geyso nurse gabdhaha oo wiilasha scholarship u dirto oo kootadii aan ku lahayn baarlamaanka wasaaradda dadkeena shaqo geysin taa wali nima hayo yaa kursiga gabadh baa la tartamaysa qadra oo kursiga holla gabadha iyo iyadana waanka waxa yeelan doona kiide dadka ay u gartaan inuu wax qabad la yimaan doono ayaa miiska fadhida haye gabadhii in adeertay ahayd ee Zamzam ee aniga $1,000 ku caawisa xariirad markaan guraynay qodobka wanaag qodobka bay iyaduna leedahay laakiin maantadan u dambaysay shalay u dambaysay wiil Ciise oo rag ololaha ku jira intay qaaday dhagax ay gacanta ka saartay inakii imika uu buka saako ilaalay warday reegadi waa ma kula gacanta ma ku jabtaan kay ma yabuul inakuna waa wadax gobo Yoonis Muuse odayadii Ciise Muqdisho yiri warbast waa gabadha naga daadana jabi waa la iska daay waxa kaloo jirta wiilal Ciise oo askar ah waa xidheen iyadii Maxamed Ali Xagaa waa eedaynta loo qabo weeyaan ragga iyo gabdhaha eedayn
halkay dadka ka caawin lahaayeen ayay tacaddi iyo dhib ugu bilaabeen kursiga kale ugu khatarsan waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda difaaca maxamed cali xagaa abti baan u ah saan reegeediyaa dhashay aabiina waa cali gurar labadaba kolla adeer baan u ah kolla waaba laakiin hadduu shaqadiisii gabay oo waxqabad laga waayey oo dadkii wax u qaban waayey anu de am sorry waxba kuma qaban karo haddii waxqabad lagaa waayey maxaan kuu qaban abti eedayn baa timid inaa wasiirkii keeni weyday oo wasiir ku-xigeen ku wareegtay wasiir ku-xigeenkii difaaca adoo jooga hal dhallinyara oo aad shaqo geyso lama hayo dhallinyara aad iskuul u dirta lama hayo dhallinyara aad scholarshipka ciidanka adaa dira scholarshipka ciidanka iyo darajadaha adaa bixiya aaweyday wixii aad ciise u qabatay haddii eedayn laguu soo jeediye shaqadaadii eedayn lagaaga soo jeediye dee abtinimo waxba kuguma qaban karo ani waxaad igu leedahay abtinimo sharaf iyo ciis waa igu leedahay aflagaadana iguma lihid laakiin shaqadaadii haddaad qabtay ood wax u qaban weyda dadkaagii waxba kuma qaban kara abti maxamed cali xagaa in adeertay samsam iyaduna 20 sano sinis carta ayay kursiga ku fadhiday xaq waxay u leeyihiin dadku dee inay iska bedilaan go-aan baa la gaadhay inaa liniga bedilo kursiga haddee toole uguma fadhinaysin yonismus uguma fadhinaysin ugaadh sababtoo ah ciisena wax umaad qaban beeshaad ka timaadeenna wax umaad qaban weliba tacaddi baad ugu darteen oo shalay baa u dambeeyey oo gacantaa dhagax kaga dhifatay wiil beesha ah kolkaa waxaan leenahay gabadha ina jeex idil cabdilaahi giire ayaa taratan kula jirta samsam inan cumar laydhaah ayaa maxamed cali xagaana tartan kula jira oo reer kuula samsam inankaay dee kuul iyo caliguramba kursiga u sameeyin yoolid muuse oo macallina oo nooc doon macallinyari macallin weyne iyo maaragtay reexublana kursiga u sameeyin hadduu yoolid muuse kursiga leeyahay dee ugaadh keligii male laba kursina ugaadhku inuu isku yeesho wax aqdaro xeebtan macallinyaro oo galaana iyaa dega macallinyaro oo galaanaa dega kursiga iyaguna xaq ba u leeyihin degma haddii lagu bixinayo kolka taratanka ogolaada abti maxamed cali xagaa haddii lagaa badiyo u hambaliye haddaad badisana dee oo ku soo noqoto weli waan ku daba taagnaanayna 21 sinis carta iyaad kursigaa fadhidaa tirakoob bay tahay waxqabad weliba kursigii ciisaha ee ahaa wasiir buuxa ayaad keeni weyday eedayntaabaa lagu hayaa beesha ciise meel kastay joogto eedayntaabaa lagu hayaa sidaad eedayntaa isaga difaacdo waan kuu soo garaa oo waxaan ku idhi soo hadal ila hadal soo gal facebookayga eedayntaa iska difaacabti haddaa iska difaaci karin aamuslaantu waxay ka dhigan tahay wixii laguu sheegay baad leedahay waa diiday inaad ka hadasho qof kalean kuu soo dirsan baa igu tiri dee qof kale lama rabo waxaa la rabaa inaad adigu istifaacdo kursiga waan sheegay furlabaha labadii yoolis muuse kii walaaldoon ka hadhay ilka casaa la ydhaa ninka walaaldoona kursiga ku fadhiya muddo dheer eedayn badan oo waxa qof uu gaf ku sameeyey qof uu dilay iyo qof uu xidhay uma haya isaga waxa wax xidhay wax dilay waa labadaa yoolis muuse labadaa un baa dilay maya ka walaaldoon dee qof ma xidhin laakiin dad wax uu qabtayna ma jirto laakiin labada yoolis muuse dadkii wax shaqana geeya yidhi bayba xidhxidheenay dileenba ay gacan ula tegeen kolkaa kan dulunka gacantiisa ku samaynaya iyo kaa ka aamusay aqalkiisa iska fadhiyay waxqabad horta seero baan siinayaa wiilkaa walaaldoonna waxqabad la-aan waa seero hal gabadho walaaldoona maad shaqo keentay oo ka shaqeyn hal wiila weli scholarship maad u dirtay dee maxaad kursiga ku fadhidaa walaaldoon baad ugu fadhidaa soo maa imisaad weli wax u qabatay hal scholarship maad gelisay wasaarada weli maad si shaqo gelisay waxaad qabatay ma jiro baaba qadra oo holo u joogto iyadana waa laga eedda way leedahay maxay qabatay labada nina horoone oo midna wasiir ku-xigeen yahay
midna uu yahay xildhibaan maxaad u qabateen horoone magay horoone wax ku cuntiine maxaad u qabateen imisaad shaqo geyseen imisaad iskuul u dirteen imisaad safaarad geyseen maxaad meel u raacday weli gabadh iyo wiil horoonaa maxaad dhakhtar geyseen oo bukaan seero labada kursi ee mamaasanka iyo kani kale ee kursiga sanadka ee iminka already kursiga ku fadhiya 4 sanana dhaa muxuu qabtay suuqa jaalaha qolada Portugal la yiraahdo number ku leeyahay Djibouti iska fadhiya lan cruiser ku dhac wata halku dadka Muqdisho wax uga qaban lahaa Djibouti wajaadka ku cunaa xildhibaanadii reer Djibouti baaba la yiraahdaaba ma waxasan qabat no nama qabat war Djibouti waa maamul gaar Soomaaliya waa maamul gaar dhulkana waan deganah xaq baan u leenahay laakiin dadkii dhulka degana ee xildhibaan u haydeen maxaad wax u qabateen waa odaga Bilal ee sanad ku fadhiya iyo odaga Sakariye labadii dhintay Allah u naxariisto oo iyaga aad uma soo jeedinayno xisaabtoodii waa la xidhay kolka taadi iyo dib maayna wax wanaaga beesha ciise 8 kursi ma jiraan marka madaxda Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo iyo guddiga election war codkayga gaarsiiya waxaan leenahay xaq soor baan u baahanahay qofkan waxba noo qabanin ma rabto beesha ciise anaga qabiil buu halka ku fadhiya qabiilkiisii iyo ciisanimo midna uma qaban ummadda Soomaali ummadda ciise ma rabto go'aanka wii iyo noona boqol iyo kowga halka fadhiya ayaa go'aanka iskale waaya arinta waxaan u wareegi doonaa xogaa music baan nigu nasin arinta waayahay hadda buldhuqo ayaan kaalay waxa ku iga heerka isaha iyo taadiga dirnaba ka socda ee dadka la xidhay هذا الله الحلي أيوة كرتيلة تيجي ورئيسية وقال لي أرماء السعودة باقي ندرو يدي أنا وقاس ما عرونا يوم قبنا ما عرونا يوم قبنا تقال كميه وردبت إنه ما شيء هذا الله يحفظه شركراية برنامج شركراية خير الله نسيه هذا ما سنتي ما تتوبك وارجع وارمح حساسية بارك الله فيكم وقد تحتالي عندك وانكو لما توني ذا لغنون يبوكي مدير يغير يحنبر فايو لغما وغتمع كليل تدير ربي باي سودين جري عميلا كيفتي دايك جلي عمر قولك مدر قاياني دوني ذا لقولون يبوكي مدر يغير يحنبر فايو لغما وغتمع وياي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا وحن كان لنا بغلقو يا فؤاد يوسف علي أو سيدك وبطل لوgu ciyaarayo aroortooda oo wadu leeyahay ninkaay wuxuu diiday taadi wasaaradda ciidanka difaaca qaybta boolodada ayuu ka tirsanaa shaqada mushaarkiisii baa lagu silciyay diyaaradii inuu wada loo diiday reernima lagu diiday qabyaalad baa lagu dureeyay markaa uu cadhooday wuxuu baxsaday Ethiopia billions dollar bay baxsheen oo noo soo qabtay yiraahdeen sababta kaliya tan wuxuu yiri
ورماشن عدالة كما جرت دولة تعديات جرت ورانس كبدله ضدو كع يوي انت امرك ويري هلكا قردومس ما هنا نكن عدالة برادني كنت بوي سوق بسدين واحدين لو سنه مقعدين هذا 10 سنه ايا لو حكمه وضل وين arrinta waa xaq darro wey waa xaq darro marna cadaalad ma helayo qofka Ismaaciil Cumar Geelle hoos jooga waxa weeyaan Ismaaciil Cumar Geelle cadaalad xumada iyo qabyaalada ee dawladii oo dhanba reerkiisu ka dhigo jilku ka wada dhigay family quru dawladiiba ka wada dhigay marka waxaasna diimaha dawlad waa dawlad reer weeyaan ee dawlad ma u dhantahay ummadda Jabuuti oo dhan waxa kaloo jira bulqo شنو وحويان واحد اللي ولا سعودين لبادي كنا شنو توانكي صدق بقول قف أيام لو دلي بلقو ده كايو مولود دجالي وحلا واحد دم بجالينا أيجري وحلا ولا هي يقولا ورانو عني إيمانية إيش عبايو إيشور دوية يورما يعني بسيارة دجالي ناي يأكل كاك إسكابل ديو أول كومني دجال كومني دولمات كومني ندابي كيدا يما ولا كرتين لا يبا والظلم ضد مواطنين الله يسي ضد وطني الله يسي وحق ضره ما نقول بينه باش ريجي وتدمان يونس مسؤول لما لينا يسودن بالكا كنت صدق بقول خوف بانتنت قبيل كستلا كجري رصاصتي markay dhacday dadkii gigada ariga joogoo yaa ku array ay rasaasti wada qaatay marka waa dulunka Ismaaciil Cumar Geelle qabriga kugu sugaya ilaa yawm qiyaamaha mana iloobeyno historygana bulqo way qorantahay 22 December waa bish December maanta labadeed wax yar baa ka haray dalbaadega beesha Yoonis Muuse ayaana la laayay oo dulunka lagu sameeyay waxay sameyn kareen beesha Yoonis Muuse waan joogay maalinta arrinta dhalinyaradii iyo haweenkii gel waa la kacay xalnaan arko sanali ma yabayna odayada isu Yoonis Muuse war maya maanta inaan dhulka dumino oon dagaal ku dumino wixii inta soo noqon maaye naga daaya magtiin wana ka qaadanay magtiin ila maanta way dafirsayn oo lagu leeyahay magtii ila maanta way dafirsayn kolka taadiga aan xad lahayn oo qabiil isku bedelay oo shaad dawladeed loo isticmaalayo ayuu maamulkii Jabuuti noqday maamul dadkooda leeyihiin ma maanta waa maamul reer gaari iska leeyahay oo sharkii iyo qarannimadii wadankan reernimo lagu isticmaalay waana dul halaga joogsadaa leena arrinka halaga bedelo waaya halka baan kaga bixi arrinta aadan laale uu qarxiyay barigii dhaweyd maxaa ka dhashay odayada Yoonis Muuse Suudaan baan samaysanayay waa la wada xidhay kadib waa la iska sii daayay iminka waxaan maqlaynaa erga loo diray meeta la fadhiisanayaa maxaa inta dad la xidhayo baashan sanad bay socotay gudigan odayada Ciise maxaa ka qaldan intay arrinku dagaal gelin ee la xidhin ee loo isticmaalin gudiga Ciise inay boolis isticmaalaan xaq ma aha xeerka Ciise kuma jirto ina boolis iyo dawlad la isku isticmaalo xeerka Ciise waxa ku jirta odayada Ciise iyo ogaasku qofka dambi gala ay dawladdu xirato inuu yiraahdo waasmaanahay ana abawa uu furdaamiyo uu soo daay ogaas xasan wuxuu sameyn jiray inta qof dila qofka gaari qof jeedsiya isaga waas noqonayo soo daynayo odhanay ana ka masuula laakiin maanta ogaaskii odayada joogi inay iyagu dad naftoodii askar ka haystaan dad xidhaan waa nasiib darro waana qalad arrinta ka soo horjeedna dadweynihii ku dhintay Garbaciisa Cadeyto yaa shalay la ii soo diray inta qof halka ku dhimatay inta dhaawaca inta aad mashquul ku tihiin Suudaan iyo wax maal yacni oo lagu dhamayn kara geed hoosti oo ciidamo loo dirdiray ma ciidanka u dirtay Garbaciisa ma magaalada dib loogu noqdo ma Cadeyto lagu noqdo waxba inaga qaldan Ibrahim Ismaani raga kilil ee xiniyaa u leh shacabka meesha Ciise dhexdeeda abo winanka yariga iyo kuwayni ku sidaabad malaha dile yaad wadati kolka amar ka baqdeen aad dhulkeed qaadatay iska celin weydeen
waxba aad tari weydeen oy geedaha hoostooda jiifaan dadkii oy cunto haysan maad ku mashquulsiin intaad meel dejin lahaydeen iskuulla carruurta ugu celin lahaydeen gargaar u samayn lahaydeen yaa ku mashquulaysin odayaal wax iska samaysanayo qarash la baxayo jeebkooga wax ka samaysanaya geeda hoosti baa lagu dhammayn karay ee inaa ciidan loo diro looma baahnayn xeerka isaana meel bay arrintaa kaga dhacday dhaawaca la ii soo diray waa 8 qof oo ku dhaawacmay garbaciis 211 dhimasho ah magacdoodii oo qoraalaan haya facebookaygaan soo dhigi doona guddiga odayada ayaa mas-uuladda u raacaya yaa dagaalkaa geliyey dadka yaa ka mas-uula 12 oday ah isii hogaaska iyo maamulka gobolka city iyo ka jigjiga yaa mas-uuladdaa leh dadkii intii dhaawacii xitaa halkeed ku ogtay halkeed ku daweysay waa nasiib darro oo foolxumo xeerka ciise wuxuu ku shaqeeyaa kalsooni war qof baa gef kaa galay wargeedkay igu soo dhaadhac dembi baan kaa tirsanayaa walaalkayow ayaad odhanaysaa qofkaas geedkii kolku kugu soo dhaadho adaalalayaantiinood wuxuu yidhi war ma baana mise wax isweydiin waa waxbaan isweydiinaynaa baa lagu yidhi waxbaan isweydiinaynaadii waan ku taqsiirnay baa ka dambaysa odayaroo reergeediyaa 5 lagu xidhay 7 buu xidhnaa weekend 2 days go waa la sii daayay nin horoonaa baa la xidhay oo ninkii adaan lala gabadhaashirkaa le shimiishka bundiga xidhnaa wuu xidhaya laamika 5 lagu xidhaya maxaa loo isticmaalay guddiga hogaaska ayaa jilibkii reergeedii yidhi noo xidha muuse dheerwa faamiligii hoose weeyaan odaygeedii la gendaa ku jira isagaa yidhi xidho caskarta u diray saasaa la leeyahay ninka horoonana odayaal jilibkiisii horoonaa ayaa lala hadloo la yidhi soo xidha kuwa booliis iyagu odayaal goormay booliis noqdeen is xidhi jiray hadday odayadu yidhaan kolkii gar dhacdo oo qof gar lagu haysto aabbuu samaystaa geedkuu tagaa kolkaabaa baanaha la galaa kolkaabaa haddii gartii lagaa hela dee lagu taksiiri laakiin adoo garba lagaa helin oo jeelun lagu gelinayo waa qalad weeyaan marka waxa weeyaan arrinkan sidaa ma ahayn sidii loo handhalgaraynay waxaa kaloon maqlay iminka ibraahim cismaan weygan inuu yimiday dirdhaba uu maamulka dirdhaba u tegey uu yidhi dowladda federaalka doonaysay aadan laale noogu gooyo waranti inaa runtaa ina been tahay mooy ibraahim cismaan kursigan waxaad ku timiday garab dhinac ka socda cadaaladna waa lagaa la'yahay dadkii galbeedka oo dulman baad waxba u qaban laadahay iminkana matacaddi baad ciisi dhexdiisa ula timid arrinkaas waa la diidan yahay ma ogolaanayno mana ogolaan doono marka waa inaad dib uga noqoto fadhi kale arrinkaa وايه ها aad iyo aad baad u salaamantii waan ka bixi doonaa waxaan nagaga baxayaa wanaag waxaan si adag uga hadlayaa si adag uga hadlayaa ama tacsi tiraayala u diraya boldhoqo dadkii lagu laayay ee dhaawaca ahaa dhammaantood ilaahay naxariista jannaa siiyo intii ahligiina samir ibaan allah naga siiyo mana iloobi doono oo waxaan iloobi doonno ma aha dadkii garbaciisa lagu xasuuqay 4 bilood baa ka soo wareegay dadkii dumarkii odayadoodii la laayay gambadii baa laga dhigay wiigan baa garbadii laga dhigay December waxay August 24 bishii afraad baa soo wareegtay
أفر لباتك نوفمبر أي كل